ليس لي حول فإني بك حولي وعلي في شهيقي وزفيري أنا محتاج إليك. يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي. ليس لي حول يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي. يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا مليكي يا رجائي يا دليلي وضيائي نور دربي. ما mahadsantahay meel ma buuxinayso meeqsi buuqada maanta farasiis baa yaa kugu bedelaya marti badan baa ay fadhida si makaano eegan dhinaca u jaleeco ama ilaha shaarkii buu soo xidho maanta uu ka wada qaalisan yahay dadkii cabdi qaadir khayrkiyo caqliga iyo karaamada qofku caanbaxee allah camal wanaagiyo ku cisee ifkoodin waan ku soo casuunee nafta waan casilsee codkaagana deeqsii baan kuri walka ku sara kacabaan idin maanta namada ay xafiiskay ugu yimaadeen ayaanan qiyaasi karin runaantii had iyo jeer dhalinyarada waan dhiirigelintaas waxay u kala baxdaa tumaada aragtay iyadu macnawiyaadoo kale runaantii kan maantana waxay ka mid taan bay ka mid tahay in yaran dib ugu noqdo walaalkayna wuxuu igu baraarujiyey inuu qiso ka warramo nin baa maad aragtay wuxuu awlaadiisiibuu ayuu la fadhiistay awlaadiisa markuu la fadhiistay awlaadiisu ay soo bandhigeen qof kasta ayuu wuxuu jeclaa inuu mustaqbalka noqdo nin ka mida ina yaroo ka mida awlaadiisa ayaa waxuu sawiray guriguu degi doono mustaqbalka markaasuu eegay aabihii baa eegay bal guriganay sharax maxaad doonaysaa inaad noqoto waxaan doonayaa inaan injineer noqdo qolkan aabba waa maxay qolkani wuxuu yidhi qolka waa qolkii xaaskayga aan dejinayay kana waa kii carruurta kana waa kii maad aragtay martida kaa dibadda ee guriga uga baxsana aabbayaala buu yidhi aabba adiga ayaan kuu qoondeeyey buu yidhi aabbo qolkaa yaree dibadda ku yaalla ee kii waashmaanka aabba adaan kuugu talagalay aabba maxaa dhacay oo qolka aniga igu tala gashay sidaad awowgay ka yeeshay ayaan kaa yeelayaa buu yidhi ninkii isagoo ooyaya ayuu cararay aabbihiioo halkaa dibadda qolkaa waashmaankaa ku jira ayuu ugu tegey markaasuu yidhi aabba waxaan doonayaa inaad raacdo ood guriga ila soo degto aabba iska raaxaysa buu yidhi yarkii yaraa wuxuu yidhi ninkii wuxuu yidhi cunta ii dhandhami mayso cunto cuni maayo ilaa ayaad raacdo mooyaane uu kaxeeyey aabbihii gurigii buu geeyey kii yaraaba markuu arkay wuxuu sameeyey nashqadii buu bedelay qolkii aabbihii wuxuu ku soo daray guriguu ku soo daray markaa waxa weeyaan aabbuhu tusaale u yahay wiilkiisa aabbuhu hadduu hagaagsanaado awlaadduna way ficnaanaysa marka hadda halkan ay joogaan hadday waalid joogaan waxaan leeyahay ubadkiina wanaag tusa iyaguna way idin wanaagsanaanayaane shucuurta haddaba aan dareemayay anigoo telesoma anigoo aayatiin ah marna waan faraxsanahay marna waan murugoonayaa mar waxaan ka murugoonayaa caateeye iyo tiimkiisa marna maad aragtay waan faraxsan oo qalinjabintaan ku faraxsanahay maad arag midda kale anagu haddaan telesomnahay shucuurta dadkaan la shaqaynaa haddaad faraxsantiin waan la faraxsannahay haddaad murugoonaysidna waan murugoonaynaa waa telesom waan jecelahay aayatiina waan jecelahay soo inaguna ma jeclidiin بسم الله الرحمن الرحيم هرتا رنهانتي شعورتان دريمي والله aad u faraxsan tahay markaan arkay gudoomiyaha telesom cabdi qaadir oo run-ahaantii intuu iska soo dhigay arday uu soo xirtay shaarkaygii nala qalin jabinaya si farxadeed ku soo qoray calanka wiiloof ayatiin annaguna wallaahi billahi waxaan leenahay wiiloof telesom soo saa maaha wiiloof telesom والله مركز كلام نحسنه عددا آت وقروح بدن له أفر سنة سوى دقيقة قاركون 6 سنة قاركون 2 سنة قاركون نهار سنة رهانتي هذا كل شيء دحق لي معلمين هذا قروح بدن ومحدني والله عشرات سوى دقيقة خالي أرجع وانكتشجيو هل كان مكان ير إيجانا رهانتي وحضرني شعور كان ما إن وحوجا عن ير 50 ورانا كذا مركز واحد عليه ويلوف تلسم ويلوف عبد القادر ويلوف دمان تلسم أوكي هاي نقول run ahaantii horta marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu marka xigta run ahaantii maanta shucuurteeda aad bay u sarreysaa
mar haddaan qabanay aan qabsanay xafladii ugu dambeysay kaga sii gudbi doono dugsigan aayatiin marka xigta run ahaantii aad bay noo walwalaysaa waxaa ka walwalaynaa arday aanu soo wada dhiganaynay oon kala tegayno oon hadda dib isku arkayn intii ay waqtiguna kulmiye mooyaane marka xigta waxaan aad ugu faraxsanahay run ahaantii markii haweenaydu ay samayso cuntada waxay odagayga u diyaarisaa inay dhadhamiso horta intayna u geyn run ahaantii maamulaha dugsiga macallimiinta waxay intaas 4 sano noo soo dhigayeen ama noo soo gudbinayeen si aan markaan u tigno bulsho kale aan u macaanaano amaba aan يا رب نور دربي يا رب أسعد قلبي يا